isma aanan lahayn wax walba sidaan ayay u rumoobi doonaan. kalsoonida aan nafteyda ku qabane isma aanan lahayn riyooyinka noloshaada ayaad ka guulgaari doontiin. tani waxa ay tahay qiso meelo fara badan taabanayso. ciwaankeedu wuxuu yahay muddo 6 sano ah ayaan isqabnay, wax caruur ahna iskuma aanan dhalin. kadib maxaa dhacay? khilaaf fara badan uu dhacay kadib, iyo niyaddeena oo isku kalsoonaa weysay, iyo saaxiibkay oo i haystay. kadib guushaynu siday noqotay? waxaan idiin soo gudbi doonaa qisadaas oo meelo fara badan taabanayso. waxaad ka daawanaysaan barta YouTube-ka aan ku leenahay Socdaal 24 iyo aaladayna Facebook-ga iyo TikTok-ga. haddii aad xiisaysid qisooyinka noocan oo kala saaxiib nala noqo oo ku soo biir barteena YouTube-ka ee Socdaal 24. qisada waxay ku bilaabanaysaa sida tani. Maryan iyo Axmed waxay isqabeen muddo 10 sano. 6doodii sano ee ugu horreysay wax caruur ah iskuma aysan dhalin. waxayna jeclaayeen inay helaan caruur ay indhaha ku doogsadaan. mar walba waxay isweydii jireen goormeen heli doonaa caruur. 6dii sano ee ugu horreysay noloshooda aad ayay iskugu samreen, inkastoo ay jirtay niyad labadoodu ka muuqday. habeenada ka mid ah ayay si hoose iskula hadleen, cod hoose ayay waxayna isku dhaafsadeen. Axmed iyo Maryan, goormeen heli doonaa caruur aan indhaha ku doogsano? goormaan heli doonaa ubaxii dhex yaalay? markaas ayay sheekadii siday u socotay way isfahmi waayeen. kadibna sheekadii waxay ku soo dhammaatay buuq badan oo dhexdooda ka dhacay, sababtoo ah way isfahmi waayeen. labadoodana waxay ogaa waayeen halka ay ciladu ka jirto, ma ninka mase waa gabadha. su'aalahaas ayuu qof walba qalbigiisa iska weydiiyey. muddo dheer kadib siday u buuqayeen, goortuna waa habeen dambe, jawigana aad ayuu u macaan yahay. neecawda hadalka ugu quruxda badanna wuxuu yahay lamaanahaada oo jawi qurux badan qaadanayo. waxay ku heshiiyeen ugu dambeyn subaxii inay aadaan dhakhtar, ayagoo u sheegeen qof ehelkooda, saaxiibadood iyo xitaa qofka ugu dhow ee kalsooni ay ku qabaan. subaxii ayay baxeen, isbitaal ayay aadeen, kadibna dhakhtar ayay u tageen. kadibna waa la baaray. jawaabtii muddo kadib ayay soo baxday. dhakhtarkii Axmed ayaa u tegey. markii dhakhtarkii Axmed uu tegey ayaa loo soo bixiyey Axmed jawaabtiisii. Axmed waxaa loo sheegay in uusan wax cudur ah uusan qabin oo maasha Allah yahay. markaas ayuu tii kale oo saaxiibtiis ayuu dhakhtarkii weydiiyey. markaas ayaa Axmed waxaa loo sheegay in saaxiibtiis ay tahay madhaliis, oo sidoo kale aysan wax nolosha ah aysan rajo ka lahayn. Axmed aad ayuu u niyijabay, wayna ku adkaatay sidii saaxiibtiisa ula wadaagi lahaa. markaas ayaana loo sheegay guud ahaanba inta ay nooshahay inaysan wax caruur ah aysan dhali doonin. Axmed ayaana dhakhtarkii waxa uu ka codsaday in xaaladda uu dejiyo, sidoo kalena uu gabadhii ku qanciyo in Axmed cudur laga helay oo ay gabadhu caafimaad qabto. dhakhtarkii midaas ma samayn karo ayuu dhahay, mana awoodo sababtoo waxaan ahay dhakhtar laga yaqaano gebi ahaanba halka aan ka shaqeeyo. haddii maanta been aan kuu sheegane gebi ahaanba waxay ka dhigan tahay shaqadeeda iyo sharafteeda aniga oo been ka sheegay. xaaladdu aad ayuu u adkeed, inkastoo Axmed xaaladda ilinta iyo ooyinta ay ka gaartay. ilinta ayaana laba kala ah, mid afka ka soo baxday iyo mid qalbiga laga ooyo. Axmed qalbiga ayuu ka ooyey, wuxuuna Axmed sidoo kale uu ku faraxsanaay noloshooda quruxda badan ee socoto. 6dii sano ee ugu horreysana waxay ku samreen si aad u qurux badan. Axmed oo xaaladaas ku jiro ayaa Allah subxaanahu wa tacaala u mahad celiyey, sidoo kalena Ilaahay ugu baryay ayadana wax caruur ah inuu siiyo ay kala helaan lamaantiisa Maryan. Axmed muddo dheer kadib iyo calaacal fara badan, dhakhtarkii waa uu ka aqbalay. gabadhii ayaa loo wacay, waana ay soo gashay. kadib maxaa dhici doono? gabadhii ayaa loo sheegay in ayada wax cudur ah aysan qabin oo ay fiican tahay. Axmed ayaana sidoo kale loo sheegay gabadhu inay Axmed uu yahay madhaliis, inta noloshiisa ka dhimanna uusan dhali doonin wax caruur ah.
sidaas ayay ku soo baxeen gurigii ayay imaadeen. Gurigii markay imaadeen xaaladdu aad ayay u sii xumaatay, markaas ayayna ku samreen xaaladda iyo nolosha ay ku jiraan. Arrinku oo dhakhtarku soo sheegay waxa uu ku faafay cidihii deriska iyo guud ahaan eheladoodii iyo saaxiibadii ugu dhawaay. Muddo 5 sano ayaa ka soo wareegatay. 5 sano kadib, Maryan saaxiibadeed mar walba waxa ay dhahaan, nayaa ninkan ma iska furtid oo wax caruura hadday aadan ka helen oo madhaleyska ah, ayay dhaheen. Maryan dheg jalaq uma aysan siin. Muddo 5 sano markay dhammaatay, waxaana buuxsamay sanadkii 11aad. wax caruurana ma aysan helin. Maalin maalmaha ka mid ah, Axmed ayaa qabatay Maryan. Markaas Axmed ayaa Maryan kala hadashay arrimaha noloshooda iyo sida uu xaalkooda u yahay. Maryan hadalku waxa ay ku bilowday, Axmed horta soo dhawaaw, aniga waxaan isqabnaa muddo 11 sano. Markii dhakhtarka aan aadnay waxaa ka soo wareegatay muddo 5 sano. Ilaa hadda wax caruur ah oo aan kuu hayo ma jirto. Anigu waxaan u baahanahay caruur. Waxaan u baahanahay ubaxa indhaha ku doogsado, sababtoo ah haddii maanta aan dhinto aysan waxba iga harin, wax ay nolosheeda ay tiraysa ma lahan. Maryamo aad ayay u xanaaqday. Markaas kadib ayana Axmed waxa uu dhahay, 1 sano jaanis isii, kadib haddii ay wax imaan waayaan waan kala tegi doonaa. Maryan aad ayay u qanacday, inkastoo markaas ay dhahday saaxiibaday, ehelkayga iyo dadka igu soo dhow mar walba waxay dhahaan, ninkan iska fur, haddaada wax u dhaleen oo ka daneyso oo nin kala guurso. Anigu maanta waxaan rabaa inaa i furtid oo nin kale aan guursado. Markaas ayuu dhahay, taas aad ayay u xun tahay. 1 sano oo keliya jaanis isii. 1 sano ayaa jaanis la siiyey Axmed. 1 sano kadib maxaa dhici doono? Noloshu sidee noqon doontaa? Rajaduna sidee noqon doontaa? Axmed ilaa hadda wuxuu yahay qayb qaryaha, inkastoo uusan wax cudura uusan qabin, laakiin haddana wuxuu yahay qof ku kalsoon rajada Allah iyo inuu maalin uu heli doono caruur. Sidoo kale xaaskiisa inay tahay madhaleys ayuu sidoo kale Axmed oo ka qarinayaa. Markii la gaaray muddadii 1 sano ay ku heshiiyeen, maalin maalmaha ka mid ah waxaa xanuunsatay Maryan. Xanuun daran ayaa qabtay, isbitaal ayaana la geeyey. Isbitaalkii markii la geeyey Maryan ayaa loo sheegay keliyaheeda inay yihiin eber oo wax rajo ahna aysan lahayn. Xaaladdu markay sidaas ahayd oo Maryan ay ku cakirneed, isbitaalkii loola cararay ayuu Axmed waxa uu dhahay, waxaan gelayaa safar, khayr badan ayaan kuu rajaynayaa, waana isoo baarayaa. Axmed Maryan oo aad u xanaaqsan ayaa dhahday, sidoo kale safarkaada waad iska aadi kartaa. Markaas ayayna u sii raacisay, adigu haddaan dhinto maxaan adduunyada ku dheefay? Wax caruur ah ma haysti. Intii aan ku hortaagnahay oo aan kula joogay, noloshaydu waxa ay noqotay anigu oo maanta caruur ii joogin in dunida aan ka galabsado. Maryan waxa uu dhahay, markaas kadib keli qof lagaaga bedelo ayaan kuu soo raadinayaa, khayr badan ayaan kuu rajaynayaa. Waa uu ka tegey, inkastoo oo xaaladda Maryan ee aad u sii adkeed. Markaas kadib Maryan oo aad u caraysan ayaa loo sheegay beri inay qalliin gelayso, kelidiina loo soo helay. Maryan isla markiiba waa ay murugootay, waxayna isweydiisay, aaway ninkii i qabay, isaga oo iga maqan miyaan qalliin gelayaa? Sheekadu marba waa dhinac, waa isagu ninka kelida keena ayuu ahaa. Maryan waa la qalay, wayna ku guulaysatay qalliinkii. Gurigeedii ayay ku soo noqotay, saygeedii Axmed ayaana la joogay. Waqtigooda quruxda badnaa iyo waayahoodii halkaas ayuu kasii bilowday. Muddo kadib Maryan waa ay xanuunsatay. Bishii 11aad markii la gaarayna, Maryan waxay heshay cunugii ugu horeeyay ee indhaha ku doogsato. Markaas ayaana guriga waxaa ku soo biiray iftiinkii guriga ka maqnaa ee muddo raadinayeen. Maryan aad ayay u farxday, niyaddeeduna aad ayay u degtay. Isbeddel muuqdana ayaana ka muuqday, taasi oo ahayd in nolosheedu wax badan ee rajaynaysa ay heshay. Axmed subax ayay quraac u keentay, kadib buuggii xusuus qorka ahaa ayuu wuxuu ugu tegay miiskii quraacda. Maryan buuggii ayay furtay, waxayna ku aragtay xusuuso fara badan, kuwaas oo ay akhrisay. Markii akhrisana ilinta ayay cesho weysay, inkastoo ay ku sigatay inay suuxdo xataa ay mirbeel noqoto. Haddana isla markiiba waxay wacday Axmed markuu imaaday hab ayay siisay, wayna ka raali gelisay wax walboo dhacay. Wuxuuna ahaa Axmed
qariyaha wax walba oo nolosheeda ku saabsan. xitaa wuxuu qariyay inay madhalays tahay iyo waxyaabo kale oo fara badan ayuu qariyay iyo inuu kelida qof kale ugu soo bixiyey. xaaladdu oo sidaas oo jirto, Maryam muddo 3 bilood ka badan waxay eegi weysay saaxiibkeed wejigeeda ayada oo ka xishoonaysay sidii Marwo markaas oo kale oo ku cusub xaaladda ay ku jirto. Maryam aad ayuu u adkeed qisada sheekada nuxurka ka baranayno qisadan waxay tahay in mar walba aad ku kalsoonaatid rajada Allah, sidoo kale mar walba aad ku kalsoonaatid qofka ku jecel. mar walba oo baryada Allah badisidna waxaa suurtagal ah wax walba oo niyadaada ku jiro iyo wax walba oo dunida ka aad rajaynaysid heshid. qof bilaadan ha baryin, rabbigii ku abuuray ku kalsoonaa. waxaa idiin soo gudbinaya qisadan anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. haddii aad xiisaysay qisooyinka noocan oo kale waxaad ka daawan kartaan barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24 iyo aaladdeena Facebook iyo aaladdeena TikTok. adigu haddii aad hayso qisooyin noocan oo kale waa nala soo wadaagi kartaa si bulshadaada wax badan ay ugu faa'iidaan. tani intaa ku kulmi doono qiso noocan oo kale nabadgelyo. waxaana kaa codsanayaa muuqaalka inaad share garayso si uu u gaaro saaxiibo fara badan, guryo badan oo arrintan oo kale ay ka jirtana oo mustaqbalkooda aad u sii qurux badnaado. tani intaa ku kulmi doono qiso noocan oo kale waa saaxiibkiin oo idin leh nabadgelyo. bahda mucaashaqiinta ee ku xiran Socdaal 24 waxaa leeyahay guulaysto halkaas ka sii wada horumarka janaalkeena.